Wasiirka Wasaarada Deegaanka iyo Horumarinta Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandaro oo maanta la hadlaysay telefishinka CNA ayaa ka warbixisay guud ahaanba xaalada deegaanada Somaliland. Wasiiradu waxay sidoo kalena ka hadashay xayawaanka duurjoogta ee shacabka Somaliland ugaarsanayaan iyadoo ka digtay ugaarsiga xayawaankan iyo khatarta laga dhaxli karo haddii xayawaankani ka hayamo guud ahaanba deegaanada Somaliland. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri waxa ugu wanaagsan wax weeyaan dadku inay fahmaan inay leeyihiin waxan inuu khayraad yahay waxaynu nahay dad xoolo dhaqata marka aadimka ku tiraada wacaha dilin nin ay ka cuntay xooli ka cuntay aadna ku qabsato dawaca dish tiiso ma hayna tira fahamtaan inuu xoolihiisa si fiican dawacada uga ilaashado markaad ku soo xadgado waraaba dishay waraabu aanu xoolihiga cunayay ku leeyahay markaad ku tiraahdo waxaad soo qabatay waxaad keentay jiitaad keentay ama harimcad baad soo qabatay neefu iga diray ku leeyahay laba dhalo waraaba bal ku sidee ka waran maxaad u sidaan hooyadii baa naga cuntay bay yiraahdeen xool naga cuntay anaguna iyagoon soo qaaday waxay doonaan baa ku hadlaan dadkii training baa la siiyay training ayaa la siiyay waxa trainingkaas ka mid ah waxay gelin meel walba aan ka hadlayno chief-iga baan ka hadlaynaa anagii baa hadlaynaa waxa weyn maalin walba maxkamadii baad arkaysaa xukuumay marka imika waa loo soo jeestay waana waxa xawlaheena la mid yihiin ilaahay baa ku abuuray ilaahay bayna si waqanimad aynu leenahay aynu ilaashano qof walba halka joogta ka ilaali laakiin hadduu u dhinto geeskoodir baa la doonay oo toori baa laga sameeyay geeskoodir miyay suurta galaysaa geeskoodir tay u dhiman goodirkii ما بهيسيد بيه أدو ما أنت دشيت بريد دشيت إيو waxa laga sameeynaya muqmad oo aad muqmad baan ka sameeysanayna aad ma joogto hada xushad shidad neefkiina dishaad tiraado waxaan ka sameeysanaya muqmad miya laga yeelay waa lagu daba keenay adoo geedkii gubay baad neefkiina leedahay waxaan ka sameeynaya muqmad hadalkan wasiirka ayaa imanaya waqti shacabka Soomaaliland ay ugaarsi baan ku hayaan xayawaanka duurjoogta ah gaar ahaan xayawaanka harimcadka taas oo ay dawladda Somaliland hore u mamnuucday waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar telefishinka Somaliland Space Channel magaalada Hargeysa